بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الممنوع أن لغو هدلي جيرين لغونا هدلي كرين بل عدي كو هذا الشيء حتى لغاية بإن مستقبل كيدو لن أبابئه أيها هورت هدرتن مدحوين كوحينكي مريكان كو هدلايا آد هذا الكاسي marka la joogo Mareykanka iyo Yurub iyo waa laga baxaa almuhim waan isu taagana muxuu yahay hadalkaasi oo hadda ku dhiiraday sidaas oo kale qayb kale hadalkiisaas waxa ku jirta horta Israa'iiliintu waa inay laba kala saaraan labada ay kala saaraan maxay tahay saasna isu taagana sirdoonka Mareykanka oo ogaaday in Netanyahu iyo xukuumaddiisa ay jalaafa aan caadi ahayn u soo wadaan Trump maxay tahay jalaafadaasna waan isu taagana sidaas oo kale لبنان waxa ka socda Hizbullah dhaarto dhaartay inaan isdul taagayna bal hal mar aan ku bilowno hadalkan waa Tucker Carlson. You went into this thinking this would be the war that allowed Israel to fully take over and control the Middle East. They would have... Okay. wuxuu leeyahay Israa'iil haddaad tihiin waxaad gasheen dagaalkan adinkoo ku fakaraya in ay tahay tii aad ku xukumi lahaydeen bariga dhexe oo dhan cid idin kor imaan kartaan inaan jirin dagaalkan qaabkaad u gasheen in niyadiina sidaas ay ahayd هذا وانا رن waxay la bixeen magac aan caadi ahayn waan ka takhalusayna Iran kadibna way tirsanayeen in waxa noogu xigta ii sheegay Turkiga ayaa noogu xigta kadibna kada Pakistan hooshaas ay ku jireen laakiin maxaa dhacay no more real imminent threats and yet in one of those ironies that define life the war ended up radically diminishing Israel dagaalkii wuxuu isu rogay inuu Israa'iil dhulka ku daro in Israa'iil rabtay in ay meesha la qabsato inuu dhulka dhigo radically strengthening Iran si la yaab lana hada dabcan Iran ka soo saaray inay tahay quwadii bariga dhexe ugu weyneed oo macnaha yaani sida ay u taaglantahay you lost the only president you had full control over Trump went for bal waxaad weyseen madaxweynaha kaliya oo aad xukumi jirteen markaas hadal culus oo isticmaalaya beesha ay dhageysta slave to Israel to comparing Benjamin Netanyahu Iran and you lost the only president you had full control over Trump went from being a slave to Israel to hadalkaas oo isticmaalaya Trump waxa uu ahaa adoon aad adoonsataan adinka marka adoonnimadii hal mar uun ka tagay wuxuuna aaday comparing Benjamin Netanyahu disfavorably to Al-Qaeda wuxuuna aaday in Netanyahu iyo Jawlani Abu Mohammed al-Jawlani madaxweynaha Suuriya inuu isu barbarigo madaxweynaha soo al-Qaacida ama aha marka Netanyahu iyo saaxiibkiisa aha Israa'iishi adoonka uu ahaa ayuu hal mar intuu ku soo jeestay wuxuu ka fadilay ka jecleystay al-Qaacida meeshaas hal isla gaaray ayuu leeyahay bishaaro markaska al-Qurduba Qur'aan online wuxuu ugu bishaareynayaa bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha dunida inuu u diyaariyo fursad qaali ah oo ah xifdinta Qur'aanka Kariimka iyo tafsiirka Qur'aankaba. Xaruntu waxay sidoo kale idin diyaarisay xifdinta matuunta qiraa'adka iyo tajwiidka sida Tuhfaha Jazariga iyo Duraha Shaadibiga. Fiiro gaar ah markasku wuxuu xoogga saarayaa soo saarista jiil xambaarsan qiraa'adka Qur'aanka Kariimka iyo tafsiirkiisaba. waxaana xaruntan ka howlgala macallimiin isugu jira rag iyo dumar oo aqoon u leh Qur'aanka Kariimka iyo tafsiirkiisaba. nagala soo xiriir lambarada iyo ciwaanada hooskaaga muuqda. وتكر كارلسون xarunta quraansaarka ee al-shifa quraansaar online ilaaba wax daweeye amarna waa kii ilaahay dadaal baasana saaran dooc kastoo laga eegay dhitoorna ku daalay dabadeedna ka qoostay doorkan maanta baldaymo kalaamkii daa'inkeena ayaanu doorkan ku seegin xarunta quraansaarka ee al-shifa online waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa inay soo kordhisay daweynta jinka isha iyo sixirka ilaaba wax daweeye haddaba nagala soo xiriir lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda ha moogaanin xarunta quraansaarka al-shifa quraansaar online Hizbullah video ay soo saaray وانا دارنا وحنا لا مناطق آمنة لإسرائيل وسترحل مال آمن وها إسرائيل مجرته وين كب حيسا أو كب حيسا لبنان فيديو قاسي وحال لغو أركايا تانجيو عيدمو دونس مال يالا المهم يعني ويرر أنا عادي هين أو درونسكي حزب الله عيدمو ضده أو وليبا كلا دوان صواريخ أيغو توراي أيغو محانكو رهاي هوب أنا عادي هين وطا وحا أودن أيضا أركيسا maxaa keenay inay saa u dhaartaan waxa keenay dabcan shalay duqeyntii dhacday ilaa ay xalay socotay waxay ahayd mid aan caadi ahayn illa bin Ghafiir oo ku tilmaamay in Lubnaan oo dhan la gubo oo aanan la dhageysan cid qaylisa qayladooda ay soo ula jeedo dabcan Mareykanka tweetkii oo soo qoray
wuxuu leeyahay marna danaheenna ogama tanaasunayno dana cid kale, sidaa darteeda xukuumaddu waxaan kula talinayaa inay gubto waxna inaan ka reebin lubnaan. waa hadalka bin ghafiir. okay, arrintan marka waxaa jira sirdoonka maraykanka inay u gudbiyeen Trump in Netanyahu uu doonayo inuu jalaafeeyo. weliba khiyaanadaasi waxay tahay heshiiska Iiraan lala gaaray sida loo burin lahaa meesha ugu fudud laga burin karo waa Lubnaan. Netanyahu marka ibn Ghafiir iyo waxay guud ahaan isku raacsan yihiin heshiiskan waana la bahdilay, heshiiskan dhulkan lagu dhuftay. sidee marka ku fashilinaa Lubnaan in dagaal lagu qaado? dagaalka Lubnaan lagu qaaday ujeedadiisu waa fashilinta heshiiska Maraykanka iyo Iiraan ay gaareen. sirdoonka marka waxay u sheegeen Trump in arrintaasi hadda ay socoto, ay qorsheynayaan Israa'iil inay wadaan fashilinta heshiiskaasi. Trump wuxuu ka dhihi doonaa, waa la arki doonaa, laakiin gudbinta loo gudbiyey waxay ku tusaysaa macnaha Israa'iil iyo Maraykanka fogaanshaha ay kala fogaanayaan iyo siday dabcan u kala tagayaan aad meesha ka arkaysaa. halkaa markaan uga gudubno intaa, ma og tahay waalid in adiga iyo awlaadaadu madrasada aflax quraan online ay idiin diyaarisay macallimiin khibrad dheeraad ah u leh duruusta ay bixinayaan meel kasta oo dunida aad ka joogtid adiga iyo awlaadaadu waxaad si online uga baran kartaan barashada diinta islaamka. haddaba duruusta aanu bixino waxaa ka mid ah xifdinta quraanka, barashada higaada, barashada qurxinta farta, barashada ducooyinka, barashada luqadda carabiga iyo barashada luqadda af soomaaliga. aaladaha lagu kulmi doono waxaa ka mid ah aaladda casriga ee Zoom, WhatsApp iyo Telegram. waxaanu bishan qaadanaynaa arday kooban. fadlan ka faa'iidayso oo nala bilow safarkii aad ku baran lahayd barashada quraanka kariimka iyo aasaaska diinta islaamka. wixii faahfaahinaya intaa dheer nagala soo xidhiidh nambarka WhatsApp-ka ee shaashada idinka muuqda. JD Vance hadalkiisa horta labada shay ay tahay inay Israa'iiliinta kala saaraan aan isu taageynaa. wuxuu leeyahay maslaxadda Maraykanka iyo maslaxadda Israa'iil waa labo. wuxuu dhahayaa marka Israa'iiliinta waa inay fahmi karaan oo ay isku dayaan inay fahmaan maslaxad waxaa jirta la dhaho maslaxadda Maraykanka, maslaxad waxaa jirta sidaas oo kale la dhaho maslaxadda Israa'iil. ma ahan wax oo dhan maslaxadda Israa'iil. meeshaasi bal hal mar maskaxda geli, Maraykanku Israa'iil kula doodaya war isku maslaxa ma nihin, tiina waa tiina, taana waa taana. cidda dhahaysana ogow waa madaxweyne ku-xigeenka Maraykanka. macnaha Israa'iiliyiinta doodaya ee tashwiishka furaya ee dagaalka ku jira waxaaba u soo istaagay oo si toos ula dagaalamaya waa madaxweyne ku-xigeenkii Maraykanka. meesha waxbaa ka soo socda ilaa uu gaaray marka uu labada maslaxad uu sheegay uu yiri waa inay fahmaan in annaga masaalix aan leenahay. ayaa wuxuu yiri ma ahanuu yiri mistake kale yani qaladka kale oo Israa'iiliinta ay fahansan yihiin waxay tahay oo alwaysna yani lagu wareero. waa hadal aan cidna ku dhiiran karin weeyaan marka la fiiriyo caalamka, khaasatan xataa rag fanaaniin ahaa, kuwa ciyaaryahan ahaa, oo xataa shaqadooda ku waayey, mustaqbalkooda qiilqiil loo geliyey, qaara lacagahoodii oo bilyanada ah laga xirtay. almuhim waa maxay? wuxuu leeyahay marka dhaleeceynta Israa'iil in la dhaleeceeyo, in loo qaato ama laga dhigo in la neceb yahay yahuudda, waa la neceb yahay. haddii laga hadlo oo siyaasiyiinkaas macnaha siyaasaddaas asaas ah ama siyaasiyiintaas asaas tahay iyo arrintaa ma fiicna marka la dhaho, wax caadi oo caqligala marka laga hadlo waxay la boodaan waa la neceb yahay, annagaa la neceb yahay, waa la neceb yahay, waa la neceb yahay. wuxuu leeyahay marka haddii ay tahay hadal walboo laga hadlo keenaya in Israa'iil yani yahuudda la neceb yahay, haddee hadal walba yahuudda neceb yahay macnaheeda yahuudda cid walbaa neceb, macnaheeda yahuudda wax walba laga sheego waa neceb un. haddii kale waa inay u kala saarnaataa dhaleeceyn la dhaleeceeyo Israa'iil iyo naceebka yahuudda inay laba kala yihiin. ereygii marka antisemitismka ahaa ee yani weynka ahaa ee shuruucda caalamka qaar ka mid oo wadamadooda lagu soo daray ayuu nafinayaan, diidayaan. Maraykanka waxaa la gaaray yani siyaasaddaasi la dejiyey yahuudda wax naceeb ku saabsan ikada iyo cid ka hadli karta inaan jirin. bal ingiriiska tii hadda ugu dambeysay ninkii yiri Falastiiniinta ha noolaadaan oo xur ha noqdaan oo Israa'iiliin ciidamadoodana ha dhintaan, taasi ayaa waxaa la yidhi waa yahuudda neceb yahay. wax alla wixii macnaha u ballansanaa ballamo iyo stadiumyo iyo meelihii uu ku qaban lahaa heesi wixii la midka dhammaantood waa laga kansalay. ilaa ingiriiska un maahan, ilaa Jarmalka, ilaa ay meelo kale u socday dhaq waa laga kansalay. yani wuxuu hal mar waayey hadalkaas keligiisa intaasoo milyan, hal mar.
markaasaa la kuusay isaga dhan. JD Vance wuu soo dhiiraday, wuxuu taagan yahay marka nacayb yuhuud ma ahan qofkii dhalaciyay Israa'iil maskaxda gashta. hadda kadib marka arrintii ahayd iyo bahashii lagu xoqan jiray wuxuu leeyahay because if everything is macnaha nacaybkiin hadduu yahay then nothing macnaha wax oo markaasi ku saabsan nacaybkiin maba jiraba yani saas oo kale. المهم انت سنكون كوبا السلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته. xarunta quraansaarka ee al-shifa quraansaar online ilaaba waxda weeye amarna waa kii ilaahay dadaal baasana saaran dooc kastoo laga eegay dhitoorna ku daalay dabadeedna ka qoostay doorkan maanta baldaymo kalaamkii daa'inkeena ayaanu doorkan ku seegin. xarunta quraansaarka ee al-shifa online waxay bulshada Soomaaliyeed ugu bishaareynaysaa inay soo kordhisay daweynta jinka isha iyo sixirka ilaaba waxda weeye haddaba nagala soo xiriir lambarada iyo ciwaanada shaashada kaaga muuqda ha moogaanin xarunta quraansaarka al-shifa quraansaar online. bishaaro markaska alqurduba quraan online wuxuu ugu bishaareynayaa bulshooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan daafaha dunida inuu u diyaariyo fursad qaali ah oo ah xifdinta quraanka kariimka iyo tafsiirka quraankaba. xaruntu waxay sidoo kale idin diyaarisay xifdinta mutuunta qiraa'adka iyo tajwiidka sida tuxfaha jazariga iyo duraha shaadibiga. fiiro gaar ah markasku wuxuu xoogga saarayaa soo saarista jiil xambaarsan qiraa'adka quraanka kariimka iyo tafsiirkiisaba, waxaana xaruntan ka howlgala macallimiin isugu jira rag iyo dumar oo aqoon u leh quraanka kariimka iyo tafsiirkiisaba. nagala soo xiriir lambarada iyo ciwaanada hoos kaaga muuqda. ma og tahay waalid in adiga iyo awlaaddaadu madrasadda aflax quraan online ay idiin diyaarisay macallimiin khibrad dheeraad ah u leh duruusta ay bixinayaan meel kasta oo dunida aad ka joogtid adiga iyo awlaaddaadu waxaad si online uga baran kartaan barashada diinta islaamka. haddaba duruusta aanu bixinno waxaa ka mid ah xifdinta quraanka, barashada higaada, barashada qurxinta farta, barashada ducooyinka, barashada luqadda carabiga iyo barashada luqadda af Soomaaliga. aaladaha lagu kulmi doono waxaa ka mid ah aaladda casriga ee Zoom, WhatsApp iyo Telegram. waxaanu bishan qaadanaynaa arday kooban. fadlan ka faa'iidayso oo nala bilow safarkii aad ku baran lahayd barashada quraanka kariimka iyo aasaaska diinta islaamka. wixii faahfaahinaya intaa dheer nagala soo xidhiidh nambarka WhatsApp-ka ee shaashadda idinka muuqda. ma rabtaa inaad barato sida lacag xalaal ah looga sameeyo online ku soo biir dulmidi.com oo hel koorsooyin faahfaahsan oo kaa caawinaya inaad horumariso xirfadahaaga. waxaan hadda u fududaynay dadkeena inay lacag ka sameeyaan internetka. dulmidi.com waxay bilowday barnaamijka affiliate-ka halkaasoo aad ku kasban karto ilaa 30% commission adiga oo dadka kale u gudbinaya koorsooyinkeena. ma jiro wax maalgelin ah, kaliya iska diiwaangeli. hel linkaaga gaarka ah si aad u bilowdo lacag samaynta. ka mid noqo kuwa lacagta xalaasha ah ka sameeya internetka. haddii aad u baahan tahay caawinaad nala soo xiriir lambarka ka muuqda shaashada qoraal ahaan ama cod ahaan hana soo wicin. booqo dulmidi.com oo bilow lacag samaynta maanta.